Assalaamu calaykum. Qaybtan waa qaybtii labaad ee mashruucii la dagaalanka nuurka. Markaas ayaa cabsi igu abuurantay. Waxaan jeclaystay inaan halkan iman. Waxaa socod gudaha igala hadlaya igu yidhi xog badan aad ogaatid iyo adkayso. Cidda ila hadlaysaa ma garan. Beri dambe ayaan ogaan doonaa inay igu shaqaysanayo xoog ka awood badan kuwa aan ku biirin. Paul wuu i dareemay buuq igu furan yahay. Waxaanu ii sheegay markaan koro salaanka kala sareynta in cabsidu iga baabi'i doonto. laakiin waxa laga baahan yahay furid laxaad leh. Wuxuu si toos ah iigu sheegay baahida xilligan keentay in loo baahdo dad Soomaali ah oo gudaha ka dagaalama. Waqtigan waxaan ugu adkaatay inaan dibadda kala dagaalanno. wax walibana waxay isbedeli doonaan marka la gaaro December 22keeda 2016. waxaan jeclaystay inaan ogaado sababta xilligaa wax walba ay isku bedelayaan. waxaad moodaa inuu maqlayo faqa gudahayga ka socda. wuxuu ii sheegay in xog badan oo aan loo sheegi jirin xubnaha Dagmaro aan nasiib u helay in la ii furo. sirtaan waxaa la siin jiray inta darajadoodu ugu hooseyso 21 waa darajada kala sareynta mansuuniyadda cidda fashilista xukunkoodu ah. wuxuu igu yiri hadda sixirka aan dhulka kula dagaalami jirnay uu naga istaagay. 2012kana waxaa kor u kici doona quwadda ruuxda aadanaha oo halis weyn ku haysa qorshooyinaha aan ku dhaxlayno awoodda dunida. December 22keeda 2016 marka la gaadhana waxaa irka ka soo muuqanaya xidig cusub oo awood badan. xidigaasi markuu soo daahiro ma shaqayn doono qorshe kasta oo aan ka leenahay dhulka Soomaalida. dagaalkii hore ee qorshaysnaa waanu fulin doonaa intaan la gaarin 2016. dhulka Soomaalida waxaanu qorsheynay in 5 maamul loo qaybiyo. waxaa sidoo kale 1884 aanu miiska soo dhignay in marka la gaaro 2020 aanu dhulka Soomaalida ka sameyno 10 dowladood oo mid kasta cadow ku ah tajaarka laha. halkaas markuu marnay ayuu joojiyay hadalkii. waxaanu ii sheegay in xogta intaa ka hadhay la siin doono markaan fuliyo howlgalka koowaad ee qorshaha gacanta la iga saaray. qolkii madoobaha ayuu iga soo saaray. waxaanu keenay qol dhiig ka soo urayo. biyo ayuu madaxayga ka shubay. waxaan markii koowaad u soo dhoofay dalkayga anigoo cadow ku ah 21 July 2007 ayaan ka soo degay madaarka Hargeysa. cabsi ayaa dabooshay qalbigayga. waxaase hore la igu sheegay in waddanka aanu lahayn sirdoon difaaca. qolada qudha ee la igu dardaaray inaan ka feejignaado waa qolo waddanka ilaalisa oo suuqyada iska joogta. dadkuna aanay aqoon awoodooda iyo wejiyadooduba. judhiiba 2 guri ayaan ka kireystay masalaha ee jigjiga yar. waa 2 xaafadood ee howlgalkaaga si wacan uga haatan waxaan ku tali jiraa inaan hantiyo dhalinyar badan oo gabdhiyo wiilalba leh. waxaan ku kasbanayaa lacag iyo indhasarcaad. mustaqbal qurux badan ayaana u sawirayaa. 2daas guri ayaana kulamada ku qabtaa. hawlihi oo meel fiican ii maraya ayuu ila soo hadlay. waxaa la igu amray inaan tago gobolka Sanaag oo aan fuulo buurta Irshiid. 2 habeenimo ayaana fuulay. subaxii ayay fariin ii soo direen oo ay igu yiraahdeen xalay waxaad fuushay buurta sida sirta waddankaas. waxaas la faray inaan degdeg uga soo baxo dalka oo nolosheeda qatar ku jirto. dhaadhaca daalo markaan marayo ayuu nin cawlan nagu joojiyay buurta hoosteeda. wuxuu igu yiri kuwa ku soo diray Sanaag ayay awoodooda ku ilaan doontaa. hadaad mar dambe timaadana waad eedi. haddana fariinta gaarsii walaalahaaga madow. cabsi ayaa igu dhacday. waanan baqayay ilaa aan ka degay madaarka Heathrow. isla markiiba Paul Macmillan ayaan ku booqday xaruntiisii ururka. si diiran ayaanu ii qaabilay. wuxuu ii sheegay inaan gaaro meel ay iyagu ka baqaan. waxaanu iigu daray inaysan qorshe ka leeyihiin. isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu igu yiri hadda waxaan kuu furayaa bog kale oo sir ah. wuxuu yiri intii aan ku mashquulsanayn dagaalka Ciraaq halkan waxaa laga taagay calan tawxiid leh. waanu garan weynay halka ay naga hoos martay. 1998kii ayaanu ogaanay in ay awood ka soo baxayso halkaas. arrintii ayaa ay ka wada hadleen Mareykanka, Ingiriiska iyo Israa'iil. waxay yiraahdeen hadda aan la dagaalano. Mareykankuna wuxuu yiri aan eegno sida ay u soo baxayso. hadda waanu garan laanahay si aanu yeelno. wuxuu igu daray inay ciidamo geyn doonaan badda cas iyagoo abuuraya burcad badeed ay ka dhigtaan food saarasho iyo sabab ay ciidamadooda ku keenaan badda. waxaan arkayaa qorshiyo oo u fulaya sidii Paul Macmillan ii sheegay. taas waxaa ka daranta maanta socota. wuxuu si cad iigu sheegay 2016 inay Soomaaliland ka soo weerarayaan dhinaca bari. la soco qaybta 3aad ee mashruuca la dagaalanka nuurka. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.